iyadoo sabtidii lasoo dhaafay dowladda Belgium ay xabsiga u taxawday Maxamed Cabdi Xasan oo loo yaqaan Afweyne dowladda Belgium ay ku aadeysan inuu ka mid yahay burcabadeeda Soomaalida ayaa xariga Afweyne dibadbax looga soo horjeeday waxa uu maanta ka dhacay magaalada Cadaade ee xarun goboleedka Ximan iyo Xeeb dibadbaxana ay ka soo qayb galeen dadweyne badan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay waa goobta dibadbaxayaasha iskugu soo arooreen qaar ka mid ah dibadbaxayaasha iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb mas'uuliyiinta ka hadashay dibadbaxa ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb Xasan Cabdullaahi Maxamed iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdi Maxamed Suldaan Axmed Nuur ugu horeyn dibadbaxayaasha waxaa la hadlay wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb iyo ganacsade Maxamed Cabdi Xasan lagu qabtay ama muxuu ahaayay lagu qabtay magaalada Brussels dalka Belgiumka aad iyo aad sida ku soo banaabaxdeen iyo anaguna idin kala qayb qaadanayna waa cambaarayna waana ka xunnahay aad iyo aad aan naga soo horjeednaa in cadaalad darrada dadka lagu sameeyo cid madaxweynaha la xiro aasaasii Ximan iyo Xeeb madana tiicay yaa kamida sida lagu maqaalaha in meeshaas lagu hayo inta uu dibadbaxa socday ayaa sidoo kale waxaa banaabaxayaasha la hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdi Maxamed Suldaan Axmed Nuur Maxamed Cabdi Xasan Afweyne oo ah ninkaas laydin sheegay inuu la dagaalanka nimankaas iyaga ee badaha maartay ku jiray ninkii soo burburiyay soo baabiyay wax weyn ka qabtay sida aan ognayna 1500 oo nin badda ka soo saaray maantana asagoo gacanta ku haya in nimankaas meel looga dhaco sharaftooda aad iyo aad baan uga xunna sidaa darteed waxaan beesha caalamka ka codsanaynaa inay la tixgeliyaan oo mas-uuliyiinteena tixgeliyaan malihin nin kiisa loo haysto kiiskaa laga daayo laakiin waxaan baleenahay kiis bannaanku ka yahay bannaankay ka taagan yahay waayo ayagaaba baabi'inaya kiiska wixii laysku haysan lahaa sidaa darteed waxaan leenahay mas-uuliyiintaas ha la soo daayo dowladda Soomaaliyeed waxaan leenahay tillaabada laga qaado arrintaas waa inay ka waxaan kaloo idin sheegaya maamulku wuxuu ka yeelanayaa shir weyn oo degdeg uu ka fadhiisanaya waxaana ka hadli doona go'aamadeeda soo socda madaxweynaha Ximan iyo Xeeb si kastaba ha ahaatee Maxamed Cabdi Xasan oo loo yaqaan Afweyne ayaa dowladda Belgium waxay xabsiga u taxawday sabtidii lasoo dhaafay iyadoona lagu eedeeyay inuu ka mid yahay aasaasiyaasha kooxaha